الرحيم ليشين هدي دقنك سدان لو اوغي جيري marka la ugo caanaheeda caraf macaan bay leeyihiin marka mana halaabaan caanaha lagu shubo waa dhaqankeena Soomaaliyeed oo laga tagay laakiin hadda hadii wax laga tagi kara ma aha waa dhaqan Soomaaliyeed Soomaali meel walba oo joogto waa dhaqankeeda saana loo ugaa ليشان waxaa laga sameeyaa geed la dhahaburay oo geedaha ka baxa miiga baadiyaha ka baxa duurka ayaa laga sameeyaa waa la qoraa nin farsamo yaqaan ayaa qoraa ma aha nin walba oo sameyn karo nin baadiyaha joogo miiga joogo oo sameeyaa jirto farsamo yaqaan marka sidaan loo ogaa deen dhaqanka saana loo sameeyaa hadana laga tag beriga la isticmaali jiray ilaheena geedaha geedka la qoray kansar ma jirin xanuumahan hadda bateen oo cudurrada ma jirin هذا وحابتي كانسركا ليكركا سكرتا أول واحد كي داوين يجرنا عنها جيلة ولو شوي ليشان وحدان هذا واي ولا ضعف دقنكي عاجد أيها واحد لو شوبا عاجد كده عذرده واحد كانوا وياك بريها واحد عذرده كانوا وعاجد marka inta soo jeer 5 jeer 4 jeer 6 jeer waa ku celin kartaa oo dhugi si ugu dambeys ay u qarafto ugu dambeys nadiifiska caanaha lagu shubi saana la dhahaa gudaheeda waa ka nadiifka ah وأنا نذيفي جودها والزائد أيوة عرف بدن تهاي ويلا شيء صابون كل جوع جاي كنا كعرف بدن أو كعافمات بدن صابون كل جوع دقايق ما شاء الله ما شاء الله باك دقن كيني Soomaaliyeed oo ka tagnay anaka baka ما شاء الله دبول كيدي هذا جمعه يا مكان يا وملوجي جيد مرير لها أو عرف بادام بنكحوجي وكا زائد أيوة عرفيسة جيد مرير لها أو عرف بادام أيام كحوجي أو لقى سهلة باديها ملك الدورة كبحة وميل والبنا عن كبتين wuxuu ka baxaa dhulka guduudka mareer kulay Soomaali meel kasta oo joogto way garan dhulka guduudku ka baxaa markuu qalalo asagoo qalalan qoryihiisi ayaa lagu xugaa aanihi oo ma sha Allah loo marka xaaga bismillaahir rahmaanir rahiim waa qaybtii labaad oo xugayga markaan dhameeyay wax cardaq la dhaha caanaha lagu shubaa wixii xugayga laga cardaqaa caanaha ku jiro waa ka nooca u yaalaan waa cardaqaan laha waa laga cardaqay caanihi ku shubi ilaa beri ما شاء الله caanahan ilaa beri ma halaabayaan hadii sida iyaka oo la karkarinin ma halaabayaan waxaana yeelay wakaas saana looga cabi jiray berigii hore sidaas loogu shubi jiray oo lagu cabi jiray haddana caagag xun baa la bartay
بلاستيك سانا لدها waxaa laga cugay dhiishan waxaa laga sameeyay dhiilkan sidaaba u taqaaniin waa dhiil waxaa laga sameeyay geed la dhaha buray burayga wuxuu ka baxaa dhulka madowga ah dadka qaarna Soomaalidu waa kala af dad adab la ay dhahaan dhul madow bay dhahaan yuu ka baxaa asagaas la gooyaa nin kasta ma sameeyo nin farsamo yaqaan ah oo dhiishan sida loo hagaajiyo bartay ayaa sameeya markuu hagaajiyo waqti badan adiga 2 week waxaa lagu qoraa bahal la dhaha qormo ayaa lagu qoraa waa la hagaajiyaa waxan afkeeda sidaad aragto afkeeda waa la tolay qof ayadana haween oo farsamo yaqaan ah toshay waxaa la dhahaa arjeek waa geed asagana dhul madowga ka baxo oo in la qodo laga soo bixiyo la habeeyo oo sidii xarig ahaan waka asagana waa la hagaajiyay waxaana sababtay oo sidan looga sameeyay hadaanan la tolin oo la hagaajino tolmadan la wareejinin caanaha hadda ma daadanayso si fiican aad u dabooli waka hadda ma daadanayso ma fuqayso because hadayna waxaan qabin way inuu furmo ayuu daadan lahaa hadda waxaa koosgaray oo u daadinaynin waa bahalkan tolmadan waka xoog inaad ku furto waaya waxaana koosgaray bahalkan la tolay tolmada ma sha Allah waka qof asagana farsamo yaqaan qof kasta ma toli karo waa sida dharka loo kala yaqaan toliinkiisa ayaa iyadana loo kala yaqaanaa marka sidaas way aawaheeda waa dabooli si fiican hadaa dhulkan ku seexiso ma daadanayso waa sida ayada inay daadato loogama yaabo ka siday u afiican tahay ma sha Allah geedka laga hagaajina kulli waa idin sheegay buray baa la dhahaa burayna qof kasta ma hagaajiyo qof farsamo yaqaan oo aqoon leh baa hagaajiya oo qoraa marka buraygaasna waxaa waaya geed ma sha Allah ilaahay abuurkiisa oo ilaahay duurka ka baxay oo sidan looga dhaxta baadiyaha hadda caagagtan faraha badan oo wadanka imaaday markay jirin biyaha lagu shuban jiray caanaha lagu shuban jiray garoorka lagu ruxan jiray ma sha Allah hadda waatan dhiisheena dhaqankeena hore ma sha Allah caanaha lagu shubo ma halaabaan waka daboolkeedii haruub baa la dhahaa haruub haanta iyo haruubka la dhahaa haanta waa tan haruubkana waa kan marka haruubka waa kan caanaha lagu cabi karaa waa lagu daboolaa wax badan oo qabta ayadoo taagan dhiish wataas ayadoo caanaha ku jiraan gudaheeda fiiranaha ayadoo caanaha ku jiraan wakaas haantii haruubka macnaheeda Soomaali waxay ku mahmaadaa haantii haruubka kee daran haantii haruubka waxaa la dhahaa Soomaali markay saa ku dhahdo hooyada iyo ilmaheeda haantaa daran ayay dhahaan hadda waata dhiishii haantii waatan caanaha ku jiro haruubkiina waa ka marka waka waa idinkiga sheekada sidaad hore ugu maqasheen geed buray la dhahaa laga sameeyay nin farsamo yaqaan ayaa nin kastana ma sameyn karo nin as aqoon u leh ayaa qoray bahal la dhaho qormo ayaa lagu qoray sida idin sheegina afkeedana qof aqoon u leh xifrad iyada gooni u leh ayaa sameeyay oo tolay toliin baa la dhahaa ma sha Allah dhiishu waa sidaad aragtiin hidaheena dhaqanka bal si fiican u daawado oo si fiican u fiiriyo dad qaar aqoon ninkan u laheena intuuba cilmi ka qaadan kara deewaakaas salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh